fadhiga guddiga joogtada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa shir gudoominayay kusimaha gudoomiyaha golaha aqalka sare ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare Abshir Maxamed Axmed Abshir Buqaari kulanka ayaa ajandihiisa waxa uu ahaa ka tashiga hindis sharciyeedyada horyaala golaha aqalka sare waxaana looga hadlay hindis sharciyeedka mihnadlayaasha caafimaad iyo wax ka bedelka sharciga xaqsiinta siyaasiyiinta dawladda sida uu warbaahinta u sheegay kulanka markuu soo gabagaboobay senator Cabdikaafi Macalin Xasan habdhooraha golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya aqalka sare shirkiisii maanta guddiga joogtada ah bisha taariikhda 6 Abriil oo ka hadlay ka tashiga hindis sharciyeedkii golaha horyeelay jeedintii warbixintii guddiga dib u eegista dastuurka ee golaha guud ee ka doodayeen hindis sharciyeedka laga doodayay hindis sharciyeedkii mihnadayaasha caafimaadka wax ka bedelkii sharciga xaqsiinta siyaasiyiinta dawladda waxaana maanta shirkaas shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad Abshir Buqaari oo kusimana ah hadda aqalka sare Maxamed Nuur Maxamed Shariifka warbaahinta qaranka Muqdisho.